بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيرت الصوت وهذا مركز جوجتان dagaaladii iyo gantaalihii isdhaafsanayay ee u dhaxeeyay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta oo maalintii 20aad galay runtii Israa'iil waxay sheegtay in ay dhab ka tahay dagaalka ay doonayso oo dhinaca dhulka ah inay ku qaado marinka Gaza halka madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden oo arintaasi walaac weyn oo ka muujinayo asagoo sheegay in haddii Israa'iil ay gudaha u gasho marinka Gaza ee halkaasi kala kulmayso dhibaato iyo khasaare aad u weyn madaxweyne Biden wuxuu sheegayaa in arinta aan lagu degdegin oo aan lagu fududaanin oo Israa'iil aysan ku fududaanin in ay lug ay ku gasho gudaha marinka Gaza madaxweyne Biden wuxuu doonayaa asaga in si diblomaasiyad ah arinta loo galo oo maxaabiista Israa'iil gacanta Hamas ku jiro si diblomaasiyad ah in loo soo deeyo ayadoo marka Hamasna ay sheegtay dhankeeda in maxaabiistaasi ay marnaba ay sii dayn doonin ayadoo sii dayntoodana ay ku xirtay in wax weyn ay ku bedelan doonto taana meesha hadda ma muuqato oo hadda wax miiska u saaran Hamas ba jirto runtii oo ay maanta isdhihi karto waad ku bedelan kartaa maxaabiistan waa yahay dhanka marka Israa'iil waxay leedahay godadka ay ku jiraan maxaabiistaasi waan galaya waana weeraraynaa waxaan adeegsanaynaa sun kiimika ah ayaan adeegsanaynaa ee leedahay haddaba waxaa su'aal ah oo haddii Israa'iil ay isticmaasho sunta ciidanka laga haysto oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa iyo 200 oo qofood oo godadka hoostooda ay ku jiraan oo dhulka hoostiisa ay ku jiraan Hamasna halkaas ay ku haysato haddii ay markaa isticmaasho sunta ay sheegayso oo dareenka nervayaasha joojiso ma nabad galayaan weeyaan maxaabiista ay doonayso ay weerarka ku qaadayso oo leedahay waan soo furanaynaa ayagaasi ma badbaadayaan weey haddii suntaasi kiimikada ay isticmaasho runtii ma badbaadayaan laakiin waa Israa'iil waxay doonaysaa sida banaanba in ay dhulkaas waxa ku jiro oo marinka Gaza oo dhan inay buufiso ay doonaysaa walaa Israa'iisha la haysto ciidamadooda la haysto xataa ma doonayso waxay doonaysaa in ay mar uun ka taqalusiso nimankan Hamas la yiraahdo runtii Hamas niman waxa weeye dagaalkan ku tashtay oo nolol iyo geeri intaba ku tashtay Mareykanka markaa wuxuu aad walaac uga muujinayaa haddii markaa ay Israa'iil ay gudaha ay u gasho marinka Gaza waxa marinka Gaza ku diyaar ah ciidamo aad u badan oo Hamas ay leedahay ilaa iyo 30,000 oo dagaalyahan ayaa halkaas jooga oo diyaar u ah Hamas markii Israa'iil markay soo gasho in ay ka hortagaan halkaas ay ku baabi'iyaan haddaba marka Mareykanka taas wuxuu ka muujinayaa walaac aad u weyn oo wuxuu leeyahay Israa'iil ha ku degdegin dagaal dhulka ah ina marinka Gaza aad ku gashin arintan si diblomaasiyad ah ayaa lagu dhameynaya oo Turkiga iyo Qatar ay wadaan balse dagaalka Georgi ayuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka dhanka kaleeto dowladda Mareykanka wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in khubaro military oo Mareykan ah oo ka soo dagaalamay Iraq iyo Afghanistan in la geeyay gudaha Israa'iil nimankaas marka khubarada ah ujeedkooda ilaa iyo hadda ma aysan sheegin wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka balse waxay sheegtay khubaro aad ugu taxalluqa dagaalada bariga dhexena in badan joogay kana soo dagaalamay Afghanistan iyo Iraq in ay dowladda Israa'iil ku biirisay ayagoo siinayo kaartooyinka dhanka dagaalka ah haddaba Mareykanka si toos ah ayuu dagaalkani ugu jira gabasho malahan maraakiibtiisii xeebaha ayay joogaan ciidamadiisana gudaha ayay ku jiraan oo waxay garab taagan yihiin nimanka la yiraahdo Israa'iil haddaba marka Mareykanka runtii waa cadaystay oo wuxuu sheegay in had ya jeer ay garab taagan yihiin dowladda Israa'iil iyo shacabkeedaba dhanka kaleeto maanta waxaa duqayn ay ka dhacday gudaha Masar oo madaafiic ama gantaalo ka yimid gudaha dhinaca Israa'iil ayaa waxay ku dhaceen gudaha meesha la yiraahdo Masar ayadoo asbuucii horena sidaas oo kaleeto oo ku dhacay madfac oo halkaasi laga soo riday oo taangiga ah maanta waxaa ku dhacay la leeyahay gantaal kaleenta ayaa halkaasi ku dhacay ayadoo markaa dowladda Masarna aysan wax jawaab ay ka bixin laakiin sheegtay in ilaa ay 4 qofood ay ku dhaawacantay gantaalkaasi dhinaca Israa'iil ka yimid haddaba Israa'iil waxay wadaa waa daandaansi oo ah in
dagaalka ay soo wada galaan wadamada gobolka ama dariska la ah si yacni dagaalka toos asna ayagana ay ugu soo galaan maraykanka iyo nimanka la yidhaahdo reer galbeedka oo idilo iswato haddaba markaa israa'iil waxay doonaysaa wax kale ma aha waxay yacni u duqaynaysa suuriya dhanka kalenta iyo lubnaan iyo masar ay wax ugu turtuuraysaa waxay tahay in ay soo galaan dagaalka si oo maraykankana dagaalka usoo galo sababtoo ah maraykanka hore wuxuu u sheegay uu yidhi haddii dagaalka nimanka xamaas la yidhaahdo iyo israa'iil oo ka gudbo oo qolo kale ay soo gasho anigana diyaar ayaan u ahay inaan soo galo waana soo galaya ayuu yidhi haddaba marinka qasa waxaa ka taagan dhibaatadii iyo cariirigii oo ahay dhanka korontada iyo shidaalka runtii isbitaaladii dhaawacyada ee had iyo jeer dabiibayay waxaa weeye xaalkoodu meel fiican ma marayo ayadoo la sheegayo in saacadaha soo socdo gebi ahaanba yacni dhanka yacni isbitaalladaasi shaqada u joojin doonaan shidaal la'aan awgeed oo soo wajahday ayadoo dowladda israa'iil ay ka ilaalinayso shidaal in la keeno oo gudaha la soo geliya marinka qasa oo laga soo gudbiyo dhinaca rafax sidaasna yani cunaqabateyntaasi yani ku diidan tahay in shidaal loo keeno oo matooradii iyo wixii oksijiinadii iyo korontadii loo